وعنا وناسن داوداشنا قيمها يقدرن تمضن مربوط نقدر ونساني مربوط انت هالكان وهض مشروعنا وحنا هضنا على قال كسر هذا مركلي برامج حسيس وطان هو إن تكود هيدون تا وحنا مرتي لما أنا هقوليستي كافي ويهزل أو صومالي ده يبرها بالشيء كذا وطين بدنا يلسعودين تاريخ هذا تعال كارم في شرف يتعاون على السمو صور هذا وندونهاي thank you maanta وندونهاي ولا الchannel kaaga qadman show aad badan ma santa adaguna saad noo soo dhaweysay runtii marka ayaan la soo dhawaada sharaf inay tan wada ka qaado kaafiyo bal hadaan ku hormarno dadku waxay arkeen kaafiyo bari bulshada yaqaan macaan oo actor oo wax sameeyo prank oo adduunyo oo lagama sheekeyn karo ahana bal horta bal tarmalka in yaro kooban kaafiyo kuma horta aniga waa Kaafi Cabdi Cabdallah baa la yiraahdaa ma sha Allah waxaan ku soo barbaaray caasimadda Hargeysa mudooyinkii dambana waxaan ku noolaa magaalada Hargeysa laakiin mudooyinkii dambe aan dhaho Nairobi aan ku noolaa laakiin noloshaydii yaraantaydii waxbarashadeydii dhammaan waxaan ku soo qaatay magaalada Hargeysa waa tahay hasa dhankaaga marwada suuqyada marwada qaranka marwada hay dhankaaga anigana magacayga waxa la dhahaa Xasan Axmed waxa ku soo barbaaray magaalada Garowe دواء تسكلية دورة كروة حتى أبيض كافي أنت بحال هذا استعلي اسمها لان محمد إنسانية هذا الاستهتان كنا نفوذ ما دار شيء كذا إنه أشعرك إنه عاني هاي أنا ورا نقطة ينظر مصغر لو مصغر والله وحنا أراكها وحفيدي أرتا حسال أنا وحالة كله كشرة ayaa maaragtay wajacayl ku dhacay in waxa weyn aniga xaaladahaas markaas aan ku jirin oo iska ah nin iska bula ah ayaan hadana isla shaqo bilownay marka arinta la yaab kala waxay tahay aniga markii aan maaragtay qof iska bula ahaayo aan dib xiriirka ugu sheegtay oo ku yiri hadda caadi baan ahay joogna waa okay qof yahay dimaan isku yahay ما شاء الله يا واحد تريني وأنا قاعد وحاس وإيجا بحن وفات كوي العمل مركا وحاجة عقلي ما استعمله حكوري ده ويا ده سلاش غينا كوردود ولا على أسكاحل هاي ويا ده تري مركا إنه صورة الجلا وح لمبرون كأها من عمي سنة هاي إن مارك تدد ولا على سلاش غيا عن تيب كان غني كده ندد أصحابه marka sidaas suurta gelisay ilaa ugu dambeyntii hade ayadana ay tiri daawo ku imtixaanay mooyaan wali sidii ashan ku jeclaa ayuu ku jeclaa تعرف أنا كمان ما قصي كسر حتى قفك أذو كلا تنا أو كلا ما عرفت شو بدرتها واحد من رأسه حسوس تقفك بعد أنا أول وارنت تاس جعلك كافي ما يقدمان أنا وصل عبي أنا وحياة بدن noloshayda soo mareen rafaadiyo badan familigayga xitaa igu dayriyeen qaarkood like marka nolosha jacaylka dhabta ah ma dhamaado soo ana kaas maanta waa ku guuleystay Soomaaliya waa isku Soomaaliya ma sha Allah jacaylku wuxuu u baahan yahay sabar wuxuu u baahan yahay dulqaad wuxuu u baahan yahay lacag horta muxuu u baahan yahay sabar buu u baahan yahay صور بندي لا وبايا كلام باهن كافي محا umaraynaysaa inay wanaajiso ama isku soo dhaweyso dadka lamaanaha maxaa isku soo dhaweeya dhankaaga tadeebto dadka lamaanaha horta waxa isku soo dhaweeya waa laba shay waxa weeye isfahamka iyo dabeecadda marka jacaylka laga soo tago ilaa already labada qof is jecel yihiin marka inuu jacaylkan sii waaro waxa isku soo dhaweysa in maaragtay la isfahmo iyo dabeecadda sidoo kale haddii xataa labada qof aysan wada dhamaystirnayn labada shakhsiyana mid kamid ah oo dabeecad leeyahay oo uu qofka u wadi karo haddii labada qof is wadi karaan inta badan lama arkay way wanaagsan tahay xagee baa laga helaa farxadda lamaanaha farxadda lamaanaha horta markii la is helaa la helaa inta ka horeysa oo xiriirku u jiro waxa weeye waa dagaal isqabsi iyo isku dhac waxa la yaabaa bulshada inta asxaabta la iyo inta arkaysa aanay direemin laakiin inta dagaal
lagu baaba'ay oo dhex maraya inta xiriirka dadku ay leeyihiin laakiin inta badan labada qof waxay xasilaan markii ay nolosha wadaagaan ayay xasilaan sababtoo ah noloshu waa laba dooq waa mid qofka marka hore korka ka aragtaa jeclaato iyo mid haddana hadhow markaad guursato dee uu shakhsigu noqdo shakhsigaagii marka qofka laba jeer baa la bartaa oo markuu xiriirkeeda ka dhexeeyo haddana mar labaad baad baranaysaa markaad nolosha wadaagtaan barasho kala imaanaysaa marka qofkii dee anu noqda waxaa laga yaabaa qofkaaga waxaa laga yaabaa dad sanado 5 sano wada socday markay isguursadeen ay kala tagaan marka waxaan aaminsanahay qofku choice-kii koowaad buu noqday laakiin kii labaad ee nolosha uu noqon waayay dhanku doono ha noqotee marka farxadda inta badan waxaa la helaa lamaanaha markay isku guulaystaan laakiin inta xiriirka uu ka dhexeeyo farxad ma jirto inta badan in la isku dhaco la kala masayro taleefankaaga ii sheeg maxaad ku mashquulsanayd maalintan ballansanayn maxaa kugu dhacay iyo waxyaaba noocaas ayay u badan tahay inta badan laakiin Soomaalidu waxay oranaysaa dantaa muranka dhalisa muranka iyo isdagaalka iyo isqabsiga soo jacaylkii baa keenaysa maaha jacaylka keenaya laakiin inta badan isku dhac baa jira aan time lahayn marka dee farxadda iyo nasashadu waxay imaanaysaa marka la isguursado sax waa jacayl baa yaa keeno qofku inuu ka xanaaqo inuu ku xisaabiyo inuu timekaaga ku weydiiyo laakiin nolosha guurka hadday xisaabtii oo kale sii jirto markaa lama wada noolaan karo nolosha maya qofku de waa in dee qofka kale uu ku kalsoonaado oo uu aamino laakiin haddii xaafadda maxkamad laga furo waa dhibaato nasiina ma jirto gurigaaga haddii maxkamad ku taalo waa dhibaato asaar dhankaaga haweenka masayrka badan ragga ka masayra horta adigu masayri ma tahay aad iyo aad haye sayida u masayr badan laakiin wax cad aan ku masayro haddaan arko dee waa loo kala dhammaaday dee meeshaas waa inuu raaligelin weyn bixiyaa ama wixii uu ka maarmaa aan ka masayre marka aad baa u masayr badanaya aniga mis leedahay nolosha markii la wada nool yahay qoyska masayrku wuxuu xiisa tiraa nolosha dhankaaga mis leedahay nolosha markii la wada nool yahay labada heer isla deganaya hadda sida adiga xaajiga oo kale haddii maalin kasta la kala masayro oo isku dhaco bato mislada wuxuu xiisa tirayaa noloshii masayrku horta walaalay markii labada qof ay wada degan yihiin ay guri ku wada nool yihiin markaas wax laga masayraa oo meesha ma yaalaanba dee kalsooni markaas imaanaysaa ani waxaan dhihi lahaa markii uu hadda gaafi guursaday baa waxaan dareemay bilaa masayr bilaa buuq aniga dhan nolol farxad laa ku noolahay soo wana masayro laakiin maalmihii kale intii maalin walba isdagaali jirin isaga ay dulqaad badnaa wallahi samirka isaga ugu badnaa isaga mar walba xiriirkeena ilaalin jiray anigu badanaa waxaan dhihi jiray waa kala harayna blog every day mid kala blog saawi jiray saacad markuu xiriirka naga dhaxeeyay laakiin hadda markaan nolol aan wada samaysano guri wada degnay wallahi ما شاء الله لا قروح بدن هذا واحد لها دنيرت سينجل كأ اسكي كورسان دي لها مركز لكن وحالي ردي قرنا ساعة هنتي يحواد جورك لقى دقة ودم الدمر باصو بحي يان الحجينين هنتي يان لو حجينين ملك because حتى هذا دي وحيستي قبل هذا وحيسته وإني متقانا ويلك وحكوا عاوسة متقانا reerka dhista xitaa ay si saadhado hore ay soo bixide Suuriyada xagteedu waaye oge hooyada iyo abahay wiilkii taariikhda jacaylka dadkooda ogaayeen aad garowooda imaatay aad aragteen aad waayaha wada shay inaad maalin kasta blog u saarto masayr yar arintaas sabab ugu ahayd horta markii dambe mise marka hore markaan garow anigu waa imaanayay xiliyadaas blog baa tiraahday xitaa farq loo calmo ku fiirin jiray il qaroocan waa iska ilaalin jiray waa sasabi jiray because isagu caan buu ahaa anigana caan ma ahayn wax i garanaya ma jirin anigu un baan jacayl kala dulmanaa fahamtay kadib waa sasaban jiray laakiin markii dambe uu igu soo laabtay dee oo
ما تعرف إيش أوري ها ويقصوا لابتي سنة كده بيقصوا لابتي مركز عندي بسم الله دول كان كتيدي انت كتيدي كرا عيال